Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena. Soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. Balse intaan bilaabin muuqaalkeena, marka hore aan ku bilowno salliga xabiibkeena Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. soo dhawaada walaalayaal, muuqaalkana laag inoo saara. Waxaan rabaa maanta qiso cajiib ah oo aad ula yaabi doontaan oo xaqiiqo ah in aan idinla wadaago. Dikriga iyo xuska Allah qofka mu'minka ah mar walbo waa uu u baahan yahay. Qof habeen iyo maalin xusaya Allah subhanahu wa ta'ala iyo qof aan habeen iyo maalin xuseynin Allah subhanahu wa ta'ala miya siman waa maya, ma sinno mana sinaan karaan. Haddaba qisadeena maanta haddii aan idiin guda galo waa qiso cajiib ah taasoo laga arkay fadliga istighfaarta ama astaghfirullah wa atuubu ilayh. qofka mu'minka ah in uu Allah subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiisto wax fudud iyo wax sahlan ma aha. qisadan waxa ay ku dhacday wiilkan wax uu ahaa wiil iska dhalinyaro ah, wiil shaqaysto oo markaa jaamacad soo dhameeyay. waxa uu ka shaqeyn jiray shaqo hay'ad ah, mushaar fiican ayuu shaqaysan jiray. wiilkan waxa uu lahaa kayd ayuu aruursan jiray, akoon ayuu lahaa. wuxuu rabay in uu guursado oo uu reer sameysto. marka akoon ayuu lahaa oo wuxuu isticmaalay moogay wax kale ku aruursan jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii waxaa dhacday in shaqadii uu kasoo yara daahay. waxaa xanuunsatay hooyadiis. meesha shaqada fasax ayuu weydiistay, waa ay fasaxeen. maalin labaad ayay hooyadiis xanuunsatay, fasaxii ayuu maalin kale weydiistay. nasiib xumo xanuunkii hooyadiis waa ay u dhimatay. wiilkan waxaa dhacday in maalintii hooyadiis ay dhimanaysay haddana uu shaqadii ka maqnaado. waa qof hadda hooyadiis dhimatay. markii uu meeshii shaqada u tagay ayaa waxaa loo sheegay in uu shaqada ka fasaxan yahay, weliba qof kale la keenay. wiilkan maalintaas uu maqnaanayay kuwa xafiiska shaqada maamulka ka ah waa uu u sheegay. waxa uuna ku yidhi hooyaday ayaa iga xanuunsan, tacsi ayaa i gashay, waa ay dhimatay, ma imaan karo. taleefankii ayaa lagu damiyey. tacsidii hooyadiis markii ay dhamaatay oo shaqadii tagayna waxaa loo sheegay shaqadii inuu ka fasaxan yahay, booskiina qof kale la keensaday. weliba arrinka la yaabka leh ee la wiilkan waxa ay ahayd in haddii ay hooyada dhimatay adiga soo ma nooleen, ma adiga ayaa dhintay, maxaa u imaan weysay? bal qiyaas adigoo waalidka weliba hooyada dhimatay, dadkii aad la shaqaynaysay halkay kuu tacsiin lahaayeen, halkay kuu naxariisan lahaayeen, halkii ay kula damqan lahaayeen in ay saas ku dhahaan. wiilkan shaqadiina sidaas ayuu ku waayay, afxumadaas ayuuna kala kulmay. waa uu soo baxay gurigiisa ayuu iska imaaday asoo tacsi u taalo, hooyadiis dhimatay, shaqadiina laga buriyay. kistii oo aruursan jiray oo islaaha ku guurso ayuu muddo iskaga mudmoodayay. wiilkan nolosha stress aan caadi ahayn ayuu ka qaaday. yacni marxalad iyo meel adag ayay dadkii ula shaqeynayay xilliga ay caawin lahaayeen gacantiisa ka baxeen. maalin maalmaha ka mid ah asoo shaqo la-aan ah oo meel iska joogo ayaa yar saaxiibkiisa u imaaday. wuxuu uga waramay xaaladiis iyo dadkii ula shaqeynayay sidii ula dhaqmeen, iyo in uu hadda shaqo haynin, lacagtii yareed uu aruursadana ay kasii dhammaanayso. wiilkaas ayaa wuxuu ku yidhi, saaxiib, waxaan rabaa inaan kula wadaago arrin aan aniga ku faa'iiday. anigoo deymo badan la igu leeyahay oo aan waxba haysanin ayaa maalin maalmaha ka mid ah anigoo masaajid ku jiro, masaajidkii maxaadaro laga akhrinayay, ayaa sheekha waxa uu ka hadlayay istighfaarta ama qofka inuu Allah subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiisto iyo faa'iidada ay leedahay. weliba waxa uu aqriyay aayadahan: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. آيات أيو أقريه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ألا استغفار أما دنبداف ويديست ودنبدافه. يرسل السماء عليكم مدرارا يعني الدنبداف كأي ألا دنبداف مركي آد ويديستد محالة وهلا الرب ويمددكم بأموال وبنين وحاكروا لوهلا حولو إي أولاد. مركا ninkan markii uu intaas maqlay noloshiisa waxa uu bilaabay istighfaar inuu akhriyo. waxa uu sheegay deeman lagu lahaa inuu Alle subxaanahu wa ta'ala ka guday inuu risqi iyo xoolo fara badan helay in noloshiisii ay u qurux badnaatay in noloshiisii meeshii uu ka taagnaa ma ahe meel ka sarreys uu maan taagan. marka wuxuu yiri saaxiib cidna uma baahnid Alle subxaanahu wa ta'ala oo kaliya ayaad u baahan tahay Alle oo kaliya inaad xusto ayaad u baahan tahay murugta ku hayso iyo wax walba waad iloobi doontaa Alle ayaana ku irsaaqi doono. waxaad ogaataa bin aadan waxba kuuma haayo ee istighfaarta laazim. wiilkan talada saaxiibkiis waa uu qaatay waxa uu bilaabay istighfaar inuu akhriyo. maalintii waxa uu akhrin jiray ilaa 3,000 oo mar ayuu waxa uu dhihi jiray astaghfirullah wa atuubu ilayh astaghfirullah wa atuubu ilayh. markii uu salaada ka baxo waa uu akhrin jiray markii uu soconayo uu akhrin yani adin noloshiisa waxay u noqotay nolol maalmeedkiisa maalintii 3,000 oo mar si kasta uu mashquulsan yahay maysa dhaafi jirin. subxaan allah wiilkan 2 bil oo xiriir ah markii uu akhrinayo istighfaarta ayaa waxaa dhacday in jaanis shaqo oo aad iyo aad u fiican oo dad wanaagsan ay asigii soo raadsadaan. dad asigii soo raadsaday inuu u shaqeeyo oo dad wanaagsan mushaarkii shalay laga soo buriyay 3 jibaarkiisna inuu ku shaqeeyo. muddo kooban ayaa lacagtii uu ku aruursaday ee uu isticmaalay ee u soo noqotay noloshiisana meeshuu ka taagnaa ma ahee meel kale ayuu gaaray. waa uu guursaday nolol ayuu samaystay keed ayuu samaystay akoon ayuu yeeshay. 2 bil ayay noloshiisa ku bedeshay. dadkii shalay soo buriyay waliba xumaanta ay ku soo buriyeen hooyadiis oo dhimatay dadkii u dulqaadan waayay hooyadiis oo dhimatay dadkii u tacsiyan waayay hooyadiis oo dhimatay dadkii garan waayay warbiriya idinku dhici kartaa ee shaqadiisii ku waayay 3 jibaarkeed mushaar ah ayuu helay. hadda Alle subxaanahu wa ta'ala qofkii ku xirnaado Alle subxaanahu wa ta'ala qofkii dhinaciisa u cararo bin aadan uma baahanayo. cariiri kastoo ku haysto kurba kastoo ku haysto meel kastoo lagaaga dhagan yahay iyo meel kastoo laga haysto ha iloobin digriga Alle waliba istighfaarta ajaa'ib ay ballanqaadka Alle subxaanahu wa ta'ala. dada raadinaya awlaadi waa lagu helaa. dada raadinaya xoolo waa lagu helaa. dada raadinayo farxad wala wax kasto aad adiga raadinayso istighfaarta ay ka jirtaa. Alle subxaanahu wa ta'ala ayaana quraankiisa ku sheegay. hadda qisadaas cajiibka ah ee wiilkaas ku dhacday ayaan rabay maanta inaan idin la wadaago walaalaha quruxda badan waana qiso xaqiiqo ah. waa mahadsantihiin haddii aad muuqaalka meesha soo gaarteen fadlan hanaga iloobin muuqaalka inaad like noo saarto. haddii aad nagu cusub tahayna channelka subscribe saaro si aad u aragto muuqaalada xigo. gambalelkana furo waxay ka caawinaysaa inaad noqoto daawadaha u horeeyo. wixii tale iyo tusaale ahna qaybta hoose ee commentiga igu soo qor insha Allah. waa mahadsantiin walaalaha quruxda badan intaan ku kulmeyno muuqaal iyo qiso kale cajiib ah oo laga arkay digriga Alle subxaanahu wa ta'ala. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.